Aamina Xasan Xuseen Kurtin waa hooyo aqoonyahan Soomaaliyeed waxay ka mid tahay sanadii 2008 aasaasiyaashii maxadka tababarka caafimaadka ee Seoul Institute oo iminka u dalacay sanado ka hor heer jaamacadeed isla markaana maanta ah Seoul University. Aamina ayaa maamulo ka ahayd intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2014 xilliga waxaana safar cilmiyeed ugu baxday wadanka Mareykanka. Aamina Xasan Kurtin ayaa ka qayb qaadatay horumarinta marxaladaha kala duwan ee soo maray Seoul College ee dhanka caafimaadka ee magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle, iyadoo soo saareen boqolaal arday oo maanta bulshada wax weyn ku soo kordhiyay dhinaca caafimaadka deegaanada SSC. Muddo kadib Aamina ayaa dalka dib ugu soo noqotay waxaana ay maanta booqatay jaamacadda Seoul University xarunteeda magaalada Laascaanood oo ay ka mid tahay aasaasiyaasheeda, iyadoo soo gaarsiisay buugaag dhinaca caafimaadka oo tayadooda aad u sareyso. Maamulka jaamacadda ayaa soo dhaweyn iyo marxabeyn ugu sameeyay xarunta jaamacadda waxaana uga mahadnaqeen garab istaagga horumarinta jaamacadda Seoul University muddadeedii. dhinaca kale Aamina Xasan Kurtin ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay maanta joogto jaamacadda ay asaaskeeda qayb ka ahayd, iyadoo bulshada gobolka Seoul ugu baaqday inay ka qayb qaataan horumarinta tayada jaamacadda iyo guud ahaan goobaha kale ee dhinacyada caafimaadka iyo arrimaha bulshada. waxaa halkan maanta na soo booqatay oo nooga timi meel fog si ay u soo eegto jaamacaddii ay asaaskeeda iyo dhagaxdhigeeda lahayd Aamina Xasan Xuseen Aamina Xasan Kurtin, iyada oo jaamacadda u keentay buugaag aad u tiro badan oo kala duwan oo ku saabsan waxbarashada caafimaadka, especially si waxyaalaha lagu qaato ama gaar ahaan waxa lagu qaato Mareykanka jaamacadaha Mareykanka. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Aamina oo ahayd gudoomiyahayagii hore isla markaana ahayd asaasayaasha jaamacaddan ka mid ahayd oo aan aad iyo aad u tagnay markii intay naga aaday Mareykan. waxaanuna xaqiiqatan markastay timaado ay noo keentaa ama ay ku soo kordhisay jaamacadda wixii ay xagga ku soo aragtay waxyaalaha loo baahan yahay in qof kasta oo diaspora dibadaha aadaa uu soo kordhiyana waa taa wuxuu xagga ku soo arkay dalka isagu ma leh experience-ka uu ka arko iyo aqoonta uu ka arko inuu tasiyada u san lahayn waxa ka fiican dalkaas sida uu horumaray inuu isku dayo inuu dalkiisa horumariyo. Aamina aad iyo aad baan ku faraxsanahay soo dhawow. anigu waxa weeye sida ay idin sheegay Cubsiye waxaan ka mid ahaa dadkii asaasayaashii meeshan bilaabay kabacdina adigu intii muddo ah waxaan ku maqnaa wadanka Mareykanka markaan aadayna adigu duruufo baan u aaday ee ujeedadaydu inaan muxuu ahaay wadanka ka tagay oo kaba maartay goostay ma ahayn. markaan xagga tagayna mar walba waxa qalbiga iga jiray aan ku fikiri jiray ku riyoon jiray waxay ahayd uun iskuulkaas iyo sidii muxuu ahaay aan ugu soo kordhin lahaa ama fikir u soo heli lahaa. markii aan xagga tagayna muxuu ahaay qof marka u fudfudud shaqooyinka wadanka lagaga shaqeystay ee xamaalka ah ee lacagta laga soo saaro ma awoodi kareynin. dabeedna waxaan go'aansaday intaan wadanka bal sharciyo wuxuu ka soo helayo ka soo noqonayo inaan anigu laftirkaygu bal aan ogaado maxaa caafimaad baan anigu bartay bal caafimaadka halka laga barto iyo caafimaadka anigu bartay iyo kana halka ku haynaaba maxay ku kala duwan yihiin. taasaa ahmiyadeyda ugu weynahayd. iskuul baan ka bilaabay ilaa iyo base u hooseeyo ilaa iyo maartay kulli markii baan ka qalin jabiyay inta mar walba waxaan ku fikiri jiray iskuulka baan ku xisaabtami jiray ku fikiri jiray xaashadii meel taalaba waan ururin jiray inkastoo aanan helin dad muxuu ahaayay mujtamac oo iga kaalmeeyo oo iga caawiyo oo aan dad fara badan u soo bandhigay iskuulka iyo baahidiisa iyo wuxuu qabo haddana aniga mar walba qalbigu igaga jiray. sidaas awgeed hadda soo noqod kana soo noqday laftirkeedu ma aha markii aan ugu dambeysay maxaa muxuu ahaay inaan noqdo laga yaabaa laakiin muhiimadaydu waxa weeye wali waxa igu jira hindisihii ahaa wadanka wax ka soo kordhiyo wax ka soo baro oo dabeedna wadankaaga u soo noqo leveladii caafimaadka wax ka bartay waan isleeyahay wadankana aad bay u anfacaysaa haddii muxuu ahaay ardada halka joogta muxuu ahaay lagu baysgareeyo ama waxyaalaha ay baranayaan laga mid dhigo. marka waxa weeye ujeedadaydu saas ay ahayd. haddana iskuulkii baan soo booqday jaamacaddii baan soo booqday muxuu ahaay buugaagtiina u keenay hadeerna waan dhex joogaa
muxuu ahaay mustaqbalka haddaan noqdana weli iyada uun baan u maqanahay meel kale kuma maqnin marka waxa aan muxuu ahaay ku waanin lahaa kula talin lahaa dadka u dhashay gobolkan waxa weeye dee iyaga uun baa muxuu ahaay cidna uma maqna cidna uma qodna iyaga uun bay tahay inay wax u soo kordhiyaan وفرحان محمد عيديد ورك سم نيوز تي في لاascaanood